madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma dhagoola anigoo guriga jooga wax walba maqla bajaaj la dilay shacab la dilay qaraxa dhacay dhibaato dhacay jid baaxir qabri miyo salayn ma dhimanayo miya aakhir malahan miya dhagool miya saqiir miya sariir saar maxaa ka qaldan waxaan u sheegayaa madaxda Soomaaliya inuu wax ka qabto tilaabo gobolka Banaadir injineer Yariso asaa ballan qaaday bajaaj dambe in la dilay dhibaato dambe in loo geysan tilaabo maalin walba waxaan u sheegaynaa maanta laga bilaabo meedka meeshaas yaal qiirada nagu qaaday taayirada aan gubnay ganacsiga hormuudna ay bajaajaha dad dhaawacday waxaan ka codsanayaa dawladda tan ka qaad in aan xarunta madaxtooyada u imaanayna si degdeg ah ka jawaabin shacabka magaalada Muqdisho waxaan u dhibanahay oo u gumacsanahay dhibaatooyin ay nagu hayaan ciidamada dawladda waxa way ciidamada dawladda bilaa nidaam waaye qofka bini'aadankana ma qiimeeyaan boo sidooda xabada bis ay kala hadlaan marka dawladda meeshaan joogto waxaan ka codsanaynaa haddaysan waxba ka qaban karin waa inayna dhaaftaa annagaas ka qabanayno waxaan u sheegayaa dawladda fashilka ah oo shacabka u soo jeesatay dhiigooda inay cunaan dhiigga shacabka Soomaaliyeed inay cunaan waxaan ka codsanaynaa inay iscasilaan waddanka ma hayn karaan iscasila wajigii shalay ku dooranay waa idinka weyne Yariso waxaan u sheegaynaa wadooyinka uu xiray haddii degdeg tilaabo ah degdeg oo just uga jawaab waay